roob iyo dhigay dalka Jabuuti ayaa saameeyey isu socodka iyada oo wararka ka imanaya Jabuuti ay sheegayaan in dowladdu ay gacan ka geysatay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay roobabkan. Faafahinta warkan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse. Magaalada Jabuuti tan iyo maalintii shalay waxaa ka daayay roobab xoog badan oo biyo dhigay jidadka wadooyinka iyo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. dadweynaha reer Jabuuti oo soo maray waqtiyadii aadka u kululaa ee xagaaga bilihii aynu dhawaanta ka soo gudubnay ayaa soo dhaweeyay roobabka. roob leeyahay wallahi roob fiican bashbashay barwaaqo ayaa noo daay wax dhibaato u yeelan ma jirto nadiiftii iyo gidaafadii waxa aan naga maydhay wax dhibaato jirto ma jirto iska dhulku fiican yahay laakiin biyo wada buuxa dariiqadii dadkiina basas beel laayihiin basaskii waxay ka wada cabsoonayaan amba ay ka baqayaan inay gaariyaasha la maraan goobahan dariiqyada ee biyuhu ay wada fadhiyaan bal ka waran dawlada wallahi waxa biyuhu u buuxaan mululka iyo buuxsamay mululka in goobii qaadi biyaha ayaa loo baahan yahay in aad looga shaqeeyo biyuhu ay maraan laakiin wax dhibaato oo kale ma jirto irkuna si fiican buu noogu daayay wax burburan oo dad yeelana ma jirto waana fiicanahay Soomaali Umar Casoowe way Soomaali nicmad baad maanta daadi roob fiican baa noo daayay joogu fiican yahay waliba gaadhibadooda taadigiyo in dariiqada waxa wada fadhiyo biyo balka dhulkii waa laga weecanayo askar baa weecinaysa oo dadka ka kala weecinaysa meeshii biyuuna bilama casarka way dhacayaan baday galayaan basaskii ma jiraan oo dadkii dariiqiba wada lugeynayaan oo laakiin ciidamadii qalabka sida dadkii aan u gurmanaya dadkii ciidankiiba uu gurmanaya wax marka mashaakil ma jirto insha Allah dhulku iska fiicnaan doonaa hase yeeshee roobabka oo daayay saacado badan oo xidhiidh ah ayaa keenay inay kala xidhanto magaaladu iyadoo biyo fara badan ay fadhiisteen xaafadaha dhexdooda jidadka magaaladuna ay noqdeen daad qulqulaya. dowladda Jabuuti oo ku dhawaaqday xaalad degdega ayaa bilowday inay gurmad la gaadho dadka roobabku ay saameynta ku yeesheen iyadoo gaadiidka ciidamada qalabka sida booliska ciidamada gendarmeriga iyo kuwa ilaalada jamhuuriga iyo xeebuhu ay dhammaantood u howlgaleen inay daadgureeyaan dadka biyaha roobabku ay ku galeen guryahooda. haddaba dadkaasi ku tabaaloobay roobabka oo ilaa xalay ilaa maanta ciidamadu ay ku daadgureenayaan qaar ka mid ah xarumaha dugsiyada waxbarashada ayaan xalay kula kulmay goobahaasi la dejiyay. Ahmed Abdi Cadur xagan waxaan yimid reerkii hooyaan keenay gibi ma garatay marka dhibaataan hayso aqalkii naga buuxsamay waxaan loo qabanaa waliha damaarkaana waxba ma hayno waxaan weydiisanaa marka madaxweynaha inuu soo gargaaro dadka wax u keeno ilaahay du khayraasiye noo yimaadaan oo waxna leegan hinda maxamed cabdiwaa la yiraahdaa hinda xafidad gashaa kaartisaad baan galaa marka halkan baa leeni keenay iskoolka halkan baa leeni keenay iskoolka waran ma aqalkii baa buuxsamay waa soo qaxno aqalkii lagu buuxsamay waxaan arkay iminka gaadhigii duqa magaalada oo ka sii baxaya halkan marka in dadka looma iman waxba looma keenin way waxba looma keenin wali laakiin waa leeni soo wada waxba leeni sheegay ilaahay baa garan waxba looma sheegin maxaad ku seexanaysaan iminka halkan kuraashiyad haysataan ayaan ka soo qaadanay quduraaxad yar ku jiibsano maxamed yuusuf ducaale la yiraahdaa waxaan ahay reer kaartiseed baan ahay xaafadaha biyaha weyne ay saameeyeen ee daadadku galeen ayaan ka mid ahay saakaana la soo qaaday waxaana la keenay liiseegan leer baana la keenay dugsiga waxbarashana la keenay dee weli waxba ma hayno waxaanu ka codsanaynaa xukuumaddayadii inayna soo garab joogsato oy wax nala qabato oy guryaha iyagii eegto oy meelna dhigtaan ka codsanaynaa dowladdeedii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa waxaanu ka codsanaynaa inayna soo garab joogsadaan weli hadda ilaa waxna loo qabtay haba yaraatee ma jirto yaani keeno aqaladii naga soo guro ma militariga keenay oo na soo guray baabuurta militariga lagu soo guray iyagaana keenay iskoolka dee waxoogaa yaroo balala waa la bixiyey oo dadkaan wada gaadhin welise wax weyn oo na soo gaadhay haba yaraatee ma jirto waan iska dhibanahay waxa ka jooga xagga nimika qoyskaygii oo dhan baa jooga meesha marka dhammaan qoyskaygii oo dhan baa ku dhan aqalkaygii waa miisi waa biyo gabigiisiba waa biyo soo maaxanaya waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inayna soo garab joogsaday waxna soo gaarsiiso ma cashaysan wallaahi wax yar baa la keenay toon iyo furun yar baa la keenay wax dee ummadi ku qanci karta ma aha halkan markii layni keenay waxaan ahayn militarigan iyo askarta inay la joogtaa wax mas'uul miyaano inay imanayno la hadal waana loo yimiday meerigii baa yimiday duqii magaalada yimiday wasiirka caafimaadka waa yimiday korneyla yimiday waa la yimiday waxbay qiimeynayeen laakiin waa inay maqan yahay la leeyahay wixii dana loogu maqan yahay wali sugaynaa
dhinaca kale wakaalada Djibouti ee saadaasha hawada ayaa mar kale ka soo saartay warbixin xaaladaha saadaasha hawada Djibouti 48 saacadood ee soo socda iyadoo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Warbixintaasi ayaa tilmaamaysa in roobabku ay ka sii dii doonaan magaalada Djibouti labada maalmood ee soo socda. inkastoo roobabku ay ka yaraan doonaan sidii xoogga lahayd ee ay u biyo dhigaan labadii cishe la soo dhaafay, haddana roobabku waxay u sii socon doonaan si teelteel ah iyagoo aan wadan wax dabayla. magaalada Djibouti ayaa hadda ku jirta xaalad degdega oo lagu guda jiro hawlo gurmad iyo gargaar iskugu jira, iyadoo roobabku tan iyo xalay ay weli sii daayaan inkastoo ay yihiin roobab fudud oo gogoosa. waxaana weli dul taagan magaalada Djibouti daruuro culus iyo cimilo aad u qabow. Rabadaan Muuse, VOA, Djibouti. mahadsanid Rabadaan. dhinaca kalena roobabka ka da'aya geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay degmada la yiraahdo Breda oo ku taala cirifka bari ee Puntland. gudoomiyaha degmadaasi Abshir Maxamed Muuse ayaa sheegay in degmadu ay ka go'an tahay dalka intiisa kale maadaama ay roobabku gooyeen jidkii tagayay degmadaasi. khadka teleefanka ayaa waxaa kula xiriiray Xuseen Barre Aadan. waxaa muddo 4 habeen ka socday roobab baa ka da'ay, waxay geysteen roobabkaasi khasaaro xagga dhinaca wadooyinka. wadada Lafagoray baa ugu badan dhibka ay geysteen, wadadaas oo aad u dhacana, wadadaas oo isku xirta gobolka Gaddafo iyo gobolada kale ee Soomaaliya sida Puntland, gobolka magaalada caasimadda ee magaala ganacsiga Boosaaso oo dadku ay badeecadaha ka soo qaataan. hadda waxaa ku xayiran gawaari badan, waxayna wadadu ka go'day tuulo la yidhaahdo Fagoolo ilaa Mayro. wadadaas dhib baa lagu qabaa, waa wado qarax, waa wado ku taal u dhaxaysa Baargaal iyo Sayn. wadadaas muddo mar walba waa laga shaqeeyaa. sanadka waxaa laga sameynayay qayb kamid ah oo 6 kilomitir ah oo shaqadeeda hadda dhamaatay ana dabagaba tahay. wadadaas waxaa horey ugu dhacay gaari fiiga oo u socday degmada Mucanyo ee gobolka Gaddafo oo xaabo oo uu ahaa ganacsada Cabdiqani Cali Yuusuf. gaarigaas dad baa ku dhaawacmay, hantibaa ku burburtay. hadda waa yaal meeshii buu yaal oo wadada in yar baa dhinaca laga sameeyey oo looga leexday. dhibaatadaasa hadda ka jira. muddo intee leeg bay hadda waddadu xidhan tahay? wadadu 15 beri ka hor waxa riigaasaa ku dhacayo dad riigaasaa ku dhacayo ilaa 15 beri xoreyd waa loo gurmaday oo wadadii riigii dhinaxdaa looga baneeyey meeshii wadada uu ku dhacayo. waxa weeye isla hadda 10 beri iyadoo furan baa roobkaasi qabtay. 4 habeen buuna nahay, haddana waa da'aya caaway. dhirta kale uu geysan doono ilaahay baa garanaya, ama uma garan karo. caawa fiidka aan kula hadlayo wuu hayaa, laakiin dhibaatada maanta noo sheegay ee dadkii maray sahanka ama u jiray iyo dadkii wadada aada ugu dhawaa, dhibtaasi qayrdhaantaasi noo soo sheegeen. dhibaatooyinka taas baa ugu weyn dhibta degmada gaadhay, gaar ahaan guud ahaan gobolka. dhibtana gobolku waa nala qabaayo, badeecadaha gobolka ka yimaada meelaha kale kasoo galaa wadadaasi soo maraan. wado kale oo hadda halbowlaayo soo gashaa gobolka ma jiro. waa wadadaasna semberi mar walba way ismaataa. caradeeda caranudiga aada cara bilicsana oo roobabku uma adkeysan karto. buuro dhaadheerna waa ku taalo qarkaa kusoo rogmada oo wadada dhibaateeya. sidaan ka warqabno degmada Breda waxay ku taallaa cirifka bari ee Soomaaliya, gaar ahaan halka ugu dambeysa dhulka iyo badda iska soo galaan. marka degmadu haatan ma ka go'an tahay dalka intiisa kale? degmadu dalka intiisa kale way ka go'an tahay. guud ahaan gobolkaaba ka go'an. gobolka 3 degmo ka kooban yahay, degmada Breda, Caluula iyo Mucanyo. gobolka oo dhan baa wuxuu ka go-an yahay gobolka dalka intiisa kale oo aan waxa weeye gobolkana meel kale waxooga yimaadaan dibadda raashin loo soo gado, diban raashin kama yimaado, badeecada kama soo galaan. meesha keliya baddu hadda waa darbado xilliga kan oo dabaylaha jira oo xilligii baa lagu jiraa wadiinaha ama xayska loo yaqaano baddu ay kacdo tahay baddu. waxa weeye wadada keliya ee hadda dadka u furan waxa weeye waa wadadaasina labada cirifkaas laga soo galo koonfur bari waxa weeye bay aada uga go-an tahay oo waxa weeye wadadaas aad bay u dhibaateysan tahay. dhibkaasaa ka jira. awood iyo tabar lagu furto iyo qalab iyo dad aada u fara badan. wadada ilaa waxay caawa aniga ii sheegay 3 bilood 2 bilood
in dad ilaa 200 oo qoys 200 oo qof ay wadadaa furi karaan si loo soo sheego dadkii xogaalka aanu ku helay saasaa wadadaas ay u dhibaataysan tahay dadkuna aan u haysan badeecadaha waa laga soo iibsadaa boosaaso mar walbana suuq waxaa laga soo suuqaysaa suuqa laga soo adeegsadaa boosaaso adeegii laga soo adeegan jiray waan dadku aanay koran karin xilliga wadadaas ay furan tahay ayaa hadda dadka haysto dhibaato ku ah. kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Bareeda Abshir Maxamed Muuse oo sheegay in degmadaasi ay biyo ka gooyeen magaalooyinkii kale. waxa uu xalay khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen